بسم الله الرحمن الرحيم waxaan halka ka sii wada doonaa casharkeennii qaybta saddexaad oo aan ku dhameystiri doono insha Allah taala waxaan soo sameynay oo aan ka soo bilownay from ground imikana waxaan sameyn doonaa insha Allah inaan deerkii ku darno iyo kolamadii aan ku darno marka waxaan sameynayaa imika waan doonayaa inaan sameeyo inaan ku soo daro columnska marka ku daraysid had iyo jeer waxaad sameynaysaa columnska 6 mitir baa ugu badan inta la isu jirsiiyay standard ahaan laakiin waan laga badin karaa waana laga yareyn karaa laakiin 6 mitir waxa weeyaan waa maximum had iyo jeer waana ka badin kartaa waana ka yareyn kartaa kan yar oo kale aad iska gelinaysaa marka su'aalahan oo kale marka waxaan sameynayaa columnkii marka ayaan soo qaadanayaa column blank intaan sameeyo columnka marka waxaad sameyn kartaa laba option baad haystaa inaad halkan ku dhex samayso oo ku dhex sawirto balaankaaga caadiga ah ku dhex sawirto iyo inaad hadhow gaar u sawirto oo kulliba hadhow marka la jeexayo waxaad u baahan tahay caagi hoose ama footinkii hoose footin balaan waxa la dhahaa la sameeyaa column balaankuna ku sii dhex jiro oo center line loo sameynayo oo lagu jeexayo guriga hadhow la isticmaalayo marka waxaan sameynayaa tusaale ahaan oo kale columnka waa kan waan soo qaadanayaa marka inta yar oo kale aad soo sameysanaysaa columnka yar oo kale aad sameysanaysaa columnka yar marka isagoo ku diyaarsan soo qaadanaysa move baad leedahay waan soo qaadayaa marka meelaha suitable ku ah ee columnka u baahan oo dhan ayaan dhigayaa tusaale ahaan oo kale halkan baan ugu horeysiinayaa halkaas aan ka koowaad dhigayaa halkan markaan ka koowaad dhigo waxaan sameynayaa ka koowaad halkaan dhigayaa waan highlight garanayaa marka copy selection baan leeyahay waan iska xidhayaa object snapshot iska xidhayaa si aan meel walba u dhigi karo waxaan kaloo iska xidhayaa ortada waan iska xidhayaa object snapshot waan iska xidhayaa marka everywhere waan dhigi karaa waan soo qaadayaa tusaale ahaan kale halkan oo kalena waan dhigayaa jaranjartan baan ku fadhiisanaysaa kan halkaan mid baan dhigayaa halkaana mid baan dhigayaa okay jaranjarta afarteeda koone mid walba mid baa dhigaysaa marka koowaadba waayahay kan iyo kan kurgunkana mid baad dhigaysaa waan wadayaa saasaan soo qaadayaa tusaale ahaan kale intaan oo kalena cabirayaa waxa weeyaan 4 mitir kama badna kolley halkaana waan dhigayaa fartaana waan dhigayaa waa inay isku toosnaadaan baa muhiim ah kaana halkaasaan dhigayaa waayahay kaana bartaasaan dhigayaa waayahay waxaan sameynayaa markaa halkaana mid baan dhigayaa waayahay koonahana mid baan dhigayaa halkan waa 8 mitir waxaa qasaba kule bartanka inuu mid ka galo halkan baan mid gelinayaa marka halkaana mid baan gelinayaa waxaan diidayaa columnka in halkaa mid u dhigo oo deetana saas oo kale uu dhex maro guriga dhexdiisa hadhow beam ka soo dhex muuqdo guriga foolxumo weeyaan saa daraadeed kan iyo kan bartaas aan sii dhigayaa halkaas ku beegan okay koonahana waan dhigayaa kanna waan dhigayaa inta marka sameeyo saasaan columnski ku wada dhigay oo ay ugu dhan yihiin waxaan sameynayaa marka haddaan doonayo ka labaad inaan ku wareejiyo columnada kuwan baan copy gareynayaa hal mar baan wada qaadaya tusaale kale waan wada copyeynayaa kan baan copyeynayaa kan baan copyeynayaa kan baan copyeynayaa kan baan copyeynayaa dhammaantood waan wada copyeynayaa kan baan copyeynayaa kan baan copyeynayaa all columns waan copyeynayaa all columns waan copyeynayaa waxaan soo copyeynayaa waxaan soo wadayaa صفر وسط حبطها سي هذي
عبدان أنا أخذ عليك كوب selection بان لهاي right click مسيح كوب selection بان لهاي somewhere بان قبلها تصالح أنا كنا كاسو كنا قبلها كاسو قبلها برتها داني جاي مركا برتها داني جاي like مركا in right click enter أي بدو لو مركا ميل سيت بالقوا أيوة كو فريست بدو لو ميل سيت بالقوا أيوة كو فريست أنا يا waxaan sameynayaa markaa waan sii wadayaa intaas sidaa markaa waxaan ku wada gelinay kolamadii baan ku wada gelinay markaa wixii kale naga qabiyaa waan sameynaa dimensionka kale tusaale ahaan ku dhammaystireynaa dimensionka xagga ma soo qaadayaa waxaan leeyahay koonaha ka soo bilow tusaale ahaan kale ilaa qolkan yaroo kale tusaale ahaan kale ilaa geeskan kale ilaa geeskan waa 2.30 buu yiri ka soo qaad inta yara marinka la marayo waa 1.2 sorry xagan iyo ahayd delete ka inaga sii oo iga khaldamay dimension ka soo qaadanaysa marka ilaa barta 1.2 way taasoo kala soo wadas way waan ku soo wareejinayaa marka xaggana waan ku soo wareejinayaa okay xaggan ka sii bilow jarjarta way jarjarta ka sii bilow ilaa baranda kooniisa ولا حمتها واي انت صوتها انت ادي 0.8 كنا انت waxa sameeyay marka kan kalena aan raaciyay isagana inta in la mid ah maadaama isku mid yihiin ba aan wax ka bedelan waxaan sameyn karaaba gabagooda aan soo koobiyay qaybta ilaa wax ka bedelay labada group ugu kala duwana halka albaabka waa xirantay inta soo koobiyay halka ma sidaa dhigay maadaama waqti ka faa'iideynaa soo kufeynaa laakiin sidii aan kale ugu sameeyo kala duwan sameynaysaa adigu wadana line kaas soo qaadanaysaa ilaa halkaas ku xiraysaa afray la qoona saras ku xiraysaa waayahay 6 meter ku xiraysaa sidaa waxaan ku dhamaynay inaan ku sameeyno dimensionki marka wax kale oo muhiim ah tusaale kale waa ground floor plan iyo first floor plan oo waxay kala yihiin ground floor plan baynu mid niri weeyaan tusaale kale kan waxaan ground floor plan kaasoo ground floor plan weeyaan baynu niri scale de asaab yara jiid ama times 2 ba dheh dabeetana 2 geli dabeetana times 2 wala scale ka dadka ayso way waxa sameeyay marka kan ba si koobiyeynaya first floor plan kan ku qoraya aga ku qoraysa salaana kale first floor plan kan ku qoraya kan waa ground floor ka dhulka kana ka sareeyay xagga sare waxa ka qoraya marka magaca shirkadda salaana kale cidii laha shirkadda ama shirkadii iska lahayd ayaa sameynaya salaana kale waxa copy archi tag trial and training ballet and training taasoo kale xagga sare uga qoraysaa oo sumadii lagu garanayay cidda samaysan naqshadda way كانوا سوق هذا سا أكسر جينيسه وي وطا هذا كسبانس وي سلا أنت مركز سميسو حقا لا يعود كم مركز صاينينا تصالحنا وكله كم بعد كوبين سنسر لا يعود مركز حوي وامرك دير كوتشرو قريقة دير كوتشرو أما ماشي اللي رجع كوتشرو مركز واحد سميني لا يعود هذا يصير سيرفيس كم موضة واحد سميني تصالحنا وكله دايمش كم فرع بدلنا لو جماعة بحنا لا يعود كم مركز شوقه لا يعود كم مركز شوقه لو بحنا حاسو دايمشنا dimensionada guud baa loo baahan yahay inta guriga ku fadhiyo iyo inta sidaas ku noqonayo waka
surface-kuna waa qasab inuu ka soo muuqdo marka meesha tusaale ahaan ka soo qaad marka surface-ka inuu ka yahay surface-ku marka wuxuu ku beegmayaa halka albaabkaasi ku yaalo albaabkaasi halka ku yaalo ku beegmayaa kadibna waxaad isugu xidhaysaa line yar oo noocaas oo kale intaa yar hadh bay noqonaysaa si marka roobku daayo iyo cadceed iyo waxa loo dhex mari karo oo kitchadii inta cunto lagu soo samaysto looga soo noqon karo adoon qoyin ayaa loogu talagalay deetana saas oo kale aad samaynaysaa kan halkaas ka xidhaysaa intaa yar marka ka dhaxaysa waxay noqonaysaa sabad yar baa lagu shubayaa sabad yar ayaa lagu shubayaa hadhow sabad yar baa lagu shubayaa oo waxaad samaynaysaa hajimadaadna kusii samaynaysaa si loo garto inay meesha sabad leedahay tusaale ahaan oo kale hadh baad leedahay intaa yar sabad baad ku shubaysaa okay hadhow sabad bay noqonaysaa okay guri fiican leh waxaan samaynayaa tusaale ahaan kale ka soo qaad marka jagadeedu inay tahay xagga inay u tahay tusaale ahaan ka soo qaad 24 mitir xaggana ay u tahay tusaale ahaan kale ka soo qaad 20 mitir xaggana ay u tahay 24 waayahay dhankaana ay u tahay intaa in leeg waayahay waxaan samaynayaa halkaa point 2 baan gelinayaa point 2 ga waxaan ku samaynayaa gidaarkii aan isla naqaanay point 2 waayahay dhinac walba waan kasoo kacayaa xaggana waan kasoo kacayaa xaggana taasoo kale intaad u qabto ayaan soo kacaya waxaan u samaynayaa albaabkii weynaa ee kasoo gelayay baabuurta ama dadka ama wixii soo gelaya hadba tusaale ahaan kasoo qaado waa kan waxaad leedahay waxaa kasoo gelaya baabuurta waa albaabkii weynaa ganjeelka weeyaan saasoo kale odhanayaa kan baan mirar garaynayaa si albaabku laba fartidood weeyaan labada fartidood aan u sameeyo kan baan mirar garaynayaa way halkaana waxaan ugu sameeyey albaabkii ay dadku kasoo gelayeen baabuurtii waxaa albaabka waxa ku dhinac yaala hadii jeer albaab yar oo kale oo dadku kasoo galaan waayo mar walba ganjeelka lama furi karo marka albaab yar oo kale aynu ku sameynaa tusaale ahaan kale halkan oo yaroo dadku kasoo galaan marka ilaa halkaa trim baan tegayaa sorry kaasaan jarayaa intaa yar naga dhaliilgara sidaa waxaan ku haystaa gurigii oo complete layout leh oo plan leh oo wax kasta dhammaystiran yahay iminka waxaan qorayaa markaa inay meesha layout plan tahay ayaan halka qorayaa waan soo koobiyeynayaa kan waan soo koobiyeynayaa right click copy a selection waan soo qaadayaa f hortaas ka baqteynayaa wata laba jeer baan koobiyey mid iska delete gare waxaan leeyahay markaa layout plan layout plankii waan saaraya marka layout plankii ayaan halkaas soo dhigayaa waka kana adeero weynaysaa dadtid maadaama ay sira bedeleen kan maadaama ku yara duwan yahay ku hore oo ka yara wan yahay qoraalkiisana weyni scale sidaa u jiid ama tusaale kale times 2 dheh labadaba waad awoodaa cadadda sanad yaraysidna point waxay gelinaysaa point inta doonto point 5 haddaad geliso waa divided by 2 point 3 haddaad geliso wuu kasii yaraanayaa point 1 haddaad geliso aad buu yaraanaya way waxaad samaynaysaa markaa intaas halkaasaan markaa aan ku bahalkeynayna aan ku save garaynayna sidaa isagoo ayaad save garanaysaa markaa halkan waxaad samaynaysaa dimensionka waxaad ku sawiraysaa tusaale ahaan oo kale inuu xaggaa u yahay 24 gurigu 24 dhinaca waa 24 xaggan kalena waa 20 xaggaana waa 20 xaggaana waa 20 gurigu halkan wuxuu u jiraa gidaarka inta waad ku qoraysaa dhinac walba inta uga jira xaggaana wuxuu uga jiraa inta
وكا ساسو كلا ugu qoraysaa ساسو كلا ugu qoraysaa saas kugu dhameystiray marka imika waxaan sameeynaa waa save gareynaa waanu save gareynaa waxaan leeyahay marka control iyo b ba taabanaysaa control iyo b ba taabanaysaa kadibna waxaad leedahay wax hore maan soo sameyn marka magacyo waxbay ugu jiraan halkan ma tagayaa noocan doonaya file-ka inaan ka dhigo format-ka doonaya ka dhigo pdf ka doonaya inaan ka dhigo pdf-ka aan dooranayaa xagga a4 baad ka dooranaysaa a4 tay ku qorantay a3 tasweyn a2 a1 a4 taad dooranaysaa okay baad leedahay deetana waxaad leedahay window baad leedahay window markaa dhahdo saas oo kale soo highlight gareynayaa intii naqshadeedu ku fadhidan highlight gareynayaa centerka dhig baan odhanayaa fit taasna waa inay saaraataa landscape iyo portland hadba ku soo baxayaan arkaya taa landscape-kan ku deynaya marka waan save gareynayaa marka desktop kan dhigaya tusaale ahaan kale waxaan leeyahay lesson 3 wuu save gareynayaa marka lesson 3 saas oo kale save gareynaysaa kan baad soo qaadanaysaa way keenib inoo furay marka tusaale ahaan kale waka waad aragtaa keenu sameynaa waka wayna arkaynaa sorry yara mashquulay waka waad arkaysaa waxaan sameynaynaa markaa saasoo kale aad sameynaysaa oo waxaan doonayaa tusaale ahaan oo kale wax walba inay muuqdaan intii uu gidaarada u jiray meel walba siduu ahaa inta qaybtani waa surface-kii qaybtani waa gurigii waa ground floor-kii saasoo kale la sameynaya wuxuu leeyahay kolomadii baa ka muuqda oo ku calaamadsan inta kolome galaysaad garanaysaa saasoo kale ayaad sameynaysaa markaa waayo kan iska xidhaya markaa kii labaad baa soo wadaa kii labaad imika waxaan odhanayaa previous baan odhanayaa halkaa ay name ku qorto baan previous odhanaya dabeetana dhammaan wixii ii soo hagaajinaya tusaale ahaan oo kale a4 aan doortay halkan pdf biga dhigaya halkan a4 biga dhigaya halkan window biga dhigaya halkan centerka biga dhigaya wixii hore o dhan buu soo celinayaa keliyaata waxaan bedelayaa un nooca halka aan picture ka qaadayo oo kamaan ka dhigaya kaasaan ka qaadaya marka okay landscape iyo portland baan ku eegaya landscape ku weyn yahay okay baan leeyahay lesson 3 baan odhanaya kaan oo bixinaya saasaan ku save garanaya isagana waxaan save garanaya kaa ku sii mar walba save garayso wuu kusoo furaya waayahay kana waad aragtaa wax kasta si fiican buu u bahalkeeyey shay kasta si fiican ayuu noogu muuqdaa dimensionkii si fiican buu muuqdaa hatchingkii waa muuqdaa columnskii waa muuqdaan textiga ama magacaantii waa muuqdaan wixii waa wada muuqdaa waa isagana waan iska xidhaya waxaan u tegayaa kan kale first column ku qorantay okay window baan iyada siinayaa previews inta raadaan window siinayaa dadana waa isagana waan highlight gareynayaa sidii hore processkii hore baan marayaa dadana isagana lesson 3 okay baa siinaya isna waa kana way soo furaya waynagina nooc uu noqdo isagana waa ka si fiican buu muuqdaa everything is okay marka insha Allah taala saas oo kale ayaad u sameynaysaa u save gareynaysaa halka project imika noocan oo kale haddaad mar sameyso waad sameyn kartaa nooc kasta oo sawira oo tusaale ahaan kale plana oo naqshada oo 2D waad sawiri kartaa imika uma baahnid wax kale inta aan halkan u isticmaalay waa mid kasta loo isticmaalaa intan waa mid kasta la yara kala duwaa marka saas oo kale insha Allah ay isugu wada try garanaysaan halkaas in kulli ku joojinayna insha Allah taala 10kan naqshadan iyada bas ku joojinayna marka insha Allah taala aad ugu mahadsantiin daawashadiina. Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.